Laba guul daro oo ka soo gaartay laba kulan oo Premier League ah tababaraha Manchester United ayaa ku dadaalaya siduu guul u gaari lahaa. Erik ten Hag ayaa jeclaan lahaa kulan ka jilicsan booqashada kooxda ay xifaaltamaan ee Liverpool. Si kastaba ha ahaatee, kooxda Jurgen Klopp ayaa ku bilowday xilli ciyaareedkan laba kulan xiriir barbara ah oo ay la galeen Fulham iyo Crystal Palace. Dabcan qaab kasta oo ay labadan kooxood ee kubadda cagta Ingiriiska ugu waaweyn ku jiraan, kulamadooda ayaa had iyo jeer ah kulamo xamaasad leh. Kooxda Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford ku soo dhaweynaysa kooxda Liverpool kulan ka dhacaya magaalada Manchester ee dalka UK. Ciyaartan adag waxay bilaabanaysaa 8 fiidnimo British Summer Time, halka Afrikada Bari ay ka bilaabanayso 10 fiidnimo ee habeenka Isniinta 22 August. Kooxaha Manchester United iyo Liverpool ayaa la saadaaliyay inay sidan ku soo bilaabanayaan safafka hore ama line-up-ka. Manchester United ayaa rajaynaysa in Anthony Martial iyo Victor Lindelof ay soo laabtaan kadib markii ay dhaawac ku seegeen kulamadii ugu dambeeyay. Ten Hag waxa uu qabaa dhaawacyo kale oo yaryar, inkasta oo uu hubo inuu Rafael Varane u bedeli doono Lisandro Martinez oo daafaca ka ciyaaray kadib markii uu isbedelkaasi sameeyay waqtigii nasashada ee guuldaradii ka soo gaartay Brentford isbuucii hore. Manchester United ayaa la saadaaliyay iyadoo ku dheelayso shaxda 4-2-3-1 in ay ku soo bilaaban doonto 11geeda De Gea, Dalot, Rafael Varane, Maguire, Luke Shaw, Fred, Eriksen, Sancho, Bruno Fernandes, Rashford iyo Cristiano Ronaldo. Dhanka Liverpool waxay u badan tahay in ay soo dhaweynayaan Roberto Firmino oo dhaawac ka soo laabtay si ay u buuxiyaan booska Darwin Núñez oo ganaaxan, halka Joe Gomez uu taam u yahay inuu ku soo bilowdo booska Nat Phillips. Si kastaba ha ahaatee, liiska dhaawacyada oo hore u sii dheeraa ayaa hadda ku jira Joel Matip oo ay weheliyaan xidigo ay ka mid yihiin Thiago Alcantara, Diogo Jota iyo Alex Oxlade-Chamberlain, kuwaas oo midkoodna aanu diyaar u ahayn inuu ciyaaro. Liverpool ayaa la saadaaliyay inay ku soo bilaaban doonto 11keeda iyo shaxda 4-3-3, Alisson Becker goalkeeper, Alexander Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Elliott, Fabinho, Henderson, Salah, Firmino iyo Diaz. Liverpool ayaa badisay labadii kulan ee ugu dambeeyay ee ay u safartay Old Trafford, waxayna ka fogaatay in halkaas looga badiyo Premier League tan iyo 2018. Sidaa darteed wax la yaab leh maahan in la arkay iyaga oo ku soo badiyay Old Trafford. Si kastaba ha ahaatee, United oo dhaawac ka soo gaaray guuldarooyin isdaba joog ah oo ayna ku qeylinayaan taageerayaashooda Old Trafford ayaa ka muujinaya rajo xun kooxda Klopp.